weli waxaan ku wada jirnaa wareysiga aynu ka qaadinay mas-uuliyiinta xisbiga waa Guuleed TV yani Mukhtaar Boosha waxaan imkana wareysi ka qaadi doonaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Manchester Bolton Cabdisamed ku soo dhaw aad iyo aad baan idin salaamaya Mukhtaar adiga iyo TV Guuleedba aad baad u mahadsantihiin aadna waan idin salaamaya xafladda caawa si ku aragtay horta xafladii caawa reer la dhan aad iyo aad baan u hambalyeeynaya dad badan baa joogay si fiican baa loo soo agaasimay way ku mahadsanayeen shacabka taageerayaasha kulmiye inay si fiican ay uga soo qayb galaan marka waxaan u arkayay shacabka markaan shacabka leeyahay waa taageerayaasha kulmiye inay si qiimo leh u soo buuxiyeen maxay ku kala duwanaan xafladii Birmingham iyo xafladda xafladii Birmingham way fiicnayd tan hoolka yaraa dadkuna aad buu u badnaa marka waxay ku kala duwanaayeen labaduba xafladoodba way fiicnaayeen laakiin kulay waxa jiray tan dhaliilo badan oo ka yimaadaya xagga gudida fulinta oo uu number 1 ka yahay gudoomiyaha kulmiye ee UK xariir kaas oo aan inaba xusbiga iyo dadka ku jira cadaalad falin Soomaaliduna waxay aad iyo aadna aan uga xumahay in xusbiga kulmiye ee la yaqaanay UK si wax u qaban jiray uu maanta hog madow ku sii dhacayo taasina ay keentay in reer wadani ku faano inay UK ka xoreeyeen kulmiye taasoo keentay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa anaan ka yaabirma doojiyo waxaan halkan u bahweynta kulmiye iyo gudoomiyaha xusbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdiba aan ka faraya in uu indha gaara u yeeshay UK cilada ka jirta oo ay noqotay inay dad gaar ku shaqaystaan gudidii fulinta iyagoo u isticmaalaya awoodda loo siiyay ase aynan ahayn ay ku keeni doonto dhabarjab xusbiga hadeena wax ka qaban waa maxay sababta ay caawa ugu faaneen dad ama beenta ugu badan u sheegeen kulmiye iyadoo dad laga yariyay xisbiga wadani ayuu ucud hore looga yariyay caawa ugu soo bandhigeen gudoomiyaha Muuse Biixi inay soo galaan taasi waa waxay iska caadaysteen gudida fulintu maalin ban nin kulmiye ah bay soo taagaan nin kulmiye ah oo doonaya inuu hadla yiraahday xusbiyada kale ka soo baxay ma jiraan haba yaraatee dad xusbi kale ka soo baxay dad ka baxan mooyee kulmiye UK imika taasna waxa keentay gudida fulinta ay ka mid yihiin dad shakhsiyaad oo gaar ayaa waxay u shaqeeyaan dad shacabka kulmiye kamida oo gaar ugu shaqeysto qofkay doonayaan way soo dhaweystaan qofkay doonayaan way fogayaan taasna waxay ku keeni doontaa xusbiga dhabarjab haddaan si degdeg ah ayna wax uga qaban gudida badan baa waxay sheegeen inuu gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mr. Xariir uu afkiisa ka sheegay in magaalooyinka Cardiff iyo Manchester hadday isqabsadaan iyo hadday istiraan waxba ka gelin isagu dhaqaale doon u yahay xilliyada kamid ah xilligii ugu dambeysay Xariir wada hadallo waxa jiray inaanu ka wada hadalay Manchester oo laba garab ay ka jireen garab la yiraahdo ku qabso ku qadimaysidii oo aan kala hadlayaan idhi waa inaad wax ka qabataa wuxuu igu jawaabay marba qofka anigu danteedu ku jirtaan soo dhaweeyaa laakiin waxa isdilayaa mar reer aan noqdeen ama qofbaan noqdeen dani iguma jirto marka waxaan leeyahay oo aan farayaa gudida sare ee kulmiye ugu sareeyo Muuse Biixi Cabdi kulmiye waa la yaqaanay UK way halkiisa ku soo noqdaa waa inuu u dhiiba xilli kala guura baa lagu jiraa shantii bilood u dambeeyay lagu jiraa dadka olol loo baahan yahay doorasho loo baahan yahay dhaqaale loo baahan yahay yeena noqon in hebel meesha lagu daayay hal la keeno dad wax qabanaya gudida fulintana dib ha looga fiirso taas aan ugu faray dad badan baa waxay leeyihiin gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mr. Xariir xirsi waa laba kaadle oo wadana uu ku jira qaranka wala bixiya kulmiyana uu ku jira maxaa qoran kulliba waxay yiraahdaan ninka geediga reerkiisu ka xumaada weyn geedi kale u guura taas waxay ku cadeynaysaa inuu dad kulmiye ah xitaa uu yiraahdo xafladaha laga celiyo wuxuu Xariir isticmaalay inuu yiri dad kulmiye kamida oo Manchester joogo Birmingham joogo UK jooga inuu yiri kaarkayaan siino ay inay isdiiwaan gelin waxayna keeni doontaa qawaacid xumo ku dhacda xusbiga kulmiye marka waxaan u leenahay faraynaa kulmiye haduu doonayo shacab waa inuu wax ka qabtaa gudida fulinta UK taasoo inaba ay shaqeyn xubno shaqeynaya way ku jiraan yana saa oran dad shaqeynaya laakiin gudoomiyaha iyo afhayeenka oo noqday kulmiye ka dhigtay meel lagu shaqeysto kaarka markay ka iibinayaan waa inaad iyaga taageertaa tiraahdaa waan raacsanay laakiin uma danayaan xusbiga marka waxaanu faraynaa Muuse Biixi Cabdi dad isku keeni kara shacabka kulmiye shacabku u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay taageer u baahan yahay dad isku keeni kara inuu u doorto oo loo doorto UK laakiin ma dhici doonto in dadka badna banaanka lagu hor joogo badna jeebka la gashado taasina qawaacid ku keeni doonto gudoomiyaha UK uu ku dareystay caawa hool 500 qof qaad u kareeyay 300 qofna way yimaadeen miyana ayaan darahayn ayaan dareemayna ku timid
niyahow horta lacagta meesha lagu kireeyo shacabka laga ururiyaa taas bay keentaa in dadka aan loo kirayn meel deeqdo oo ku filan markaa taasi waxay keenaysaa dhaqaalahay hadba ku xidhan tahay waxaad moodaa UK guddida joogtaa inay dhaqaale urursi tahay iyagoo aanan u qaar ay sharaf leeyihiin laakiin guddoomiye ugu horreeya